وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثمرات تلاوة القرآن الكريم. كلمدينو waxay ku saabsan tahay quraankan kariimka ah aynu ramadaanta iyo mar walba akhriyayno. akhrinta midhaha laga goosto ama faa'iidooyinka laga helo ama xigmadaha ku jira tobaneeyo qodob meelaha. taasi waxay keenaysaa markaynu dhageysano inay quraanka inagu dhiiri geliso oo qofka yaqaanaana uu akhriyo, qofka aan aqoonina uu barto oo aanu ka qadin ilaahay kalaamkiisa. midhahan waxaa helaya qof kastoo akhriya ama ha garanaya tafsiirkiisa iyo macnihiisa ama yaanu garanin. alqur'aanu mutacabadun bitilaawati, qur-aanka waxaa laynagu addoonsaday akhrinta inaynu ilaahay ugu cibaadaysano. inuu qofku macnaha garanayaana way ka sii macaanta, way ka sii faa'iido badanta. waxa uu horeeyay inuu rasuulku ammaanay sala allahu calayhi wasalam qofka qur-aanka akhriyaya, wa wasafahu biannahu lutruja, waxaanu ku tilmaamay inuu yahay utruja. qofka mu'minkaa buuha qur-aanka akhriyaya waxa uu ka dhigaya geedka utrujada la idhaahdo kale. utrujadu waxa weeye geed udgoon macaana, labadaasuu isku daray. qur-aankuu la udgoon yahay, iimaankana wuu la macaan yahay qofkani. ama liin macaanta ha la yidhaahdo, ama saytuunka ha la yidhaahdo, ama timayuluuqda ha la yidhaahdo, waa shay udgoon iyo macaan isku darsaday. waa xadiidka saxiixa ah ee ku sugan muslim min xadiidi abi muusa alashcari. waxa labaadoo ka mida midhaha mudaacafatu lxasanaati can kulli xarfin. xaraf walood akhridaba 10 jeer in lagu laabayo ayuu nebigu xusay sala allahu calayhi wasalam. hal mar hadduu qofku qur-aanka dhammeeyo, qur-aanku waa 370 iyo siyaado kun oo xaraf. marka intaasaa lagugu darayaa, sifir baa lagugu sii darayaa malaayiin xasanaad si aada u hesho. alif laam mim laa aqulu xarf walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarf. alif laam mim waa xaraf ma odhanaya nebigu, iyada laftigeedaa saddexdaana 30 ajri baa lagu xisaabinaya, sida uu tilmaamaya xadiidkii saxiixa tirmidi min xadiidi ibni mascuud. waxaa saddexaadoo midhaha ka mida tajmiicu lmalaa'ikati wa nusuulu اraxmati waاsakiinati cinda alijtimaaci liqiraa'ati اlqur'aan. sidaana waxaa tilmaamaya xadiidka muslim min xadiidi abi hurayra. macnaha waa dallacaynaa, caalamka koraynu u dallacaynaa markaynu qur-aanka akhriyayno. caalamkii kore inala jooga, ilaahay malaa'igtiisii baa soo ururaya, inagu xeeran, ina dhegaysanaya. ha isyaraysanin mar haddaad ilaahay kalaamkiisii akhriyayso, caalamkii kaloo joogaba. marka ciyaarta ka ilaaliyo soo jeed. dadku markay kalaamka ilaahay iyagoo isu akhriyaya ama akhriyaya ku ururaan buu nebigu uhi guryaha ilaahay naxariistaa soo degaysa, malaa'igtaa soo degaysa. ilaahayna wuxuuba ku xusayaa ama qolyaha ugu faanaya malaa'igta agtiisa. hamarada afraad waxa weeye taqwiyat اliimaani fi اlqalbi wa ziyaadati. iimaanka qalbigeenna yaallaa kordhaya oo kobcaya. alqur'aanu quutu lquluub, qur-aanku waa quudka iyo raashinka qalbiga iyo ruuxda kobciya. hadduu jidhku quudkaa cunayo cunada ah, qalbiga waxaa quudiya qur-aanka. qaala allahu tacaala inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. dadka muuminiintu waxa weeye kuwa qur-aanka la akhriyaya qalbigooda uu iimaanka u kordhiyo ee u kobciyo. qodobka shanaad qaari'u lqur'aani gayru ljaafi canhu min ahli illaahi wa khaasati. qofka qur-aanka akhriyaya ee ehelka u ah ee ku dhaqmaya ilaahay buu ehel u yahay. sidaa xadiid saxiixa baa tilmaamaya oo ibnu maajah ku sugan. ahlu lqur'aani ahlullaahi wa khaasatu.
cid waliba ehel bay leedahay ilaahay kalaamkiisa cidda ehelka u ah ama ha fasireen ama ha bareen dadka ama ha barteen ama ha akhriyeen cidda kalaamka ilaahay mar walba ku noqonaysa waa ehelkii ilaahay buu nabigu xusay sallallahu alayhi wasallam qodobka lixaad yarfac يرفع قارئ القرآن في الجنة أعلى الدرجات درجooyinka u sarsareeyo kolba kor ugu sii noqonaya oo uu sii dalacaya qofka quraanka akhriya macnaheedu waxa weeye marka jannada la taga amalada kale oo dhan way joogsanayaan ilaa qiraa'atul quraan quraanka akhrintiisa way soconaysa oo qofkii muuminka darajooyin buu ku kororsanaya يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها waxaa lagu oranayaa qofkii qaariga ahaa quraanka akhriyi jiray markuu jannada gal akhri oo si fiican u akhriyo tajwiidi oo kor u soco darajadaadu waxay gaaraysaa aayadda u dambaysa markaad joojiso ay darajooyinkaagu joogsanayaan way beerayaan isagii baa kororsanaya qofku darajooyinka qodobka toddobaad waxa weeyaan yashfacu alqur'aanu li saahibihi yawma alqiyaama qofkii ehelka u ahaa quraanka akhriyi jiray wuu u ergeynaya ayaanta adag qiyaamaha nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiis muslim ku sugan as-siyaam wal qur'aan yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah maalinta qiyaamaha siyaamka iyo quraanka waa soomkan aynu soomanahay iyo quraanka aynu akhriyayno labadaasi way u ergeynayaan qofka muuminka ah de waa erge ilaahay oo gol yahay oo aqbalayo quraanku wuxuu leeyahay habeen oo dhan buu akhriyo maalin oo dhan buu akhriyo ilaahu hurdadii baan u diiday soomkuna wuxuu leeyahay raashinkii iyo cunadiisii wixii uu doonayaan u diiday waa laga aqbalaya nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qodobka sideedaad yuzaad qaari alqur'aani binuuri walbaraka wuxuu kororsanayaa qofku intuu quraanka akhriyo midhuhu goosanaya kamida laba arrimood aynu baahi weyn u qabno iftiin iyo barako mar walba barakaynu u baahanay barakada quraanka laga helaya mar walba waxaynu u baahanay iftiin quraanka laga helaya wa anzalna ilaykum nuuran mubiina dad yahow waxaanu idiin soo dejinay baa ilaahay nuur cad oo qarsoonaynba dadka quraanka ku noole la noori way nuurayaan nuur la arki karayaa bay nuurayaan barakana uu wataa ilaahay baa wuxuu kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب بانو سودة جنيس بركيسا سلور دردامية معنيس تلك كبركوبي أو إهلك أو قفك أو نلش أو وحولي بقى بركة مركة دونيس إلهي كلام كيسا كأرور قضب كالسقالات وقراءة القرآن تثبت القلوب وشفاء الصدور وحكو عافي ماذا قلبك لو ودقاه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والقرآن من أكبر الذكر حسك إلهي قلبك كدغبا إلهي ذكرك وين نواب قرآنك قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ذاتك إلهي رمي دجنبو يا قرآن دو يهي بشار يهي ذاتك مسلمين تعالى قارئ القرآن يذكره الله تعالى مر هذا القرآن في آخريس إلهي بعد حسيس ودي ذكر جسد كتير سجاد الله سجاد الله فقيس سجاد الجوابيس إلهي نو كحسيا ربي وحول فاذكروني أذكركم حصى مردين القرآن كيس آخرنا وين حسني أنا وانا ذي الحس بولاي مرك لا يحول ولا ذكر الله أكبر هذا حسك إذنكو أحسيسا وحكوين هو إلهي إذن حسيو إنا إذنكو إلهي حسناه وحكوين إنه يساقوا إذن حصه حسكي سواحين كو قارينا إنه يساقوا إنه حصه إنه أمانه قارئ القرآن يزداد علما وحكمة قفك قرآن كأخرية وحو كررسنا يوم الحكمة لا تنقضي عجائبه عجائبتي سي علمي سي جوهرتي سمرنا معضان قفك مرولو سي وضبا مقي ساو سي وينانيا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وآيات عدد بإلهي القرآن كيو آياتها سوحي قلين
dadka cilmiga la siiyey qalbiyadooda marka dadka qur-aanka ehelka u ahay waa aqoonyahan wey fii suduuri aladiina uutuu lcilm dadka cilmiga la siiyey aayadaha qalbigooda ku jira aayadahaasaa cilmi iyo xikmad u kordhiyey cilmi iyo xikmad oo dhan halkaasaa laga soo dhuraya laga soo qaadanaya sidaa ilaahay baa uhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulul albaab dadka cibaadaysanaya ahayn kuwa aqoon-yahanka ee cilmiga leh idan markaa 11 arrimood waa in yaroo ka mida barakooyinka midhaha faa'iidada laga helo akhrinta qur-aanka weligaa ha ka qadin maalin maalmaha ka mida akhrinta qur-aanka wardi ka yeela siduu ahaa nebiyuna moxamed sala allahu calayhi wasalam sidii asxaabtii su-aalay uu kula taliyey qur-aanka inteen akhriyaa buu bishii hal mar akhri buu intaa in ka badan baan karaa buu 10kii cisho markii dambe 3 cishuu soo gaadhsiiyey 3 cisho wax ka yar qofka ku akhriya ma fahmin buu nebigu sala allahu calayhi wasalam calaa macna alxadiid idan qaafil buu noqonayaa qofku haddii uu qur-aanka ka qado akhriyi waayo ama ilaawaba intuu xafido sidaa daraaddeed waxaynu isku waaninaynaa inaynu ka faa'iidaysanno cibaadooyinka isxambaarka isasaarka waa qiyaamkii waa siyaamkii waa qur-aankii waa sadaqadii waa dikrigii waxaasoo dhan markaynu isku beerino maalin adag baynu insha allahu tacaala u aayi doonaa sala allahu calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam wasubxaana rabbik